السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسول هذا كابون أكاديمي أو قبرتين علمي أكونتينج أي تيجا. هلكم حن كتبنا 10 كن صدحات كسب سنة أكونتينج ولو حن كده جرنا chapter 1 كي ما أنتنا chapter 1 بنسي ودي دونا marka maanta waxaan ku saari doonaa akoonnada aynu kala saari doonaa saddex nooc oo aynu horeba soo sheegnay marka waxaan kala saari doonaa asset oo hantidiya liability iyo deyntiya iyo receivability marka saddexdaas aynu kala saari doonaa marka account payable waxa weeye waa deynta shirkadda lagu leeyahay marka deynta shirkadda lagu leeyahay waxay noqonaysaa liability salaries payable kuna waxa weeye waa mushaharaadka aan la bixin deynta waa shirkadda lagu leeyahay iyaguna waxay noqonayaan liability unearned revenue waa dakhli ama yani lacag aanad shaqaysan oo lagu siiyey tusaale ahaan oo kale shaqo aad qaban doontaa lacagteedii lagu soo qadimay markaa shaqadaana weli maad shaqaysanin markaa weli waxay noqonaysaa iyaduna liability bay noqonaysaa prepaid insurance waxa weeye yani waa caymiska marka prepaid insurance sanadkii oo kale mar la sii bixiyaa markaad mar sii baxaso bishiba inbaa expire garoobaysa marka isaguna wuxuu noqonayaa ilaa intuu expire garoobayo waxa uu noqonayaa asset account receivable waa deynta aad cod ku leedahay ama shirkaddu cod ku leedahay sugaysa inay hesho deyntaasina waxay noqonaysaa asset tax payable waa cashuurta aan la bixin weli lagu leeyahay iyadana waxay noqonaysaa liability kitchen equipmentskuna waxa weeye waa qalabka isaguna wuxuu noqonayaa asset sales revenue-guna waxa weeye waa dakhliga aad shaqaysatay markaa isaguna wuxuu noqonayaa equity buu noqonayaa ama owner's equity sidoo kale maanta waxaanu ka hadli doonaa qodobka labaad ku saabsan isagana tusaalahan marka tusaalahan wuxuu ku leeyahay at the beginning of the year bilowgii sanadka Cabis Corporation corporationka Cabo waxay leedahay total asset-keegu waxa weeye waxay lahayd markuu sanadku bilaabmayay hanti dhan 800,000 sidoo kale liability waxay ahayd iyaduna 550,000 marka waxaa laynoo sheegay labadaa shay marka waxaa lagu yiri ka jawaab su'aalahan soo socda marka waxaa lagu weydiiyey su'aasha koowaad what was the value of stockholders equity maxay ahayd aan equity-ga at the beginning of the year marka tiyo aad haysato asset-ki iyo liability waxaa lagu weydiiyey marka owner's equity baa lagu weydiiyey marka sidoo kale su'aasha labaad lagu weydiiyey waxa weeye intii sanadkaa lagu guda jiray liability waxay korodhay 150 owner's equity-ga ama stockholders owner's equity-gun iyadana waxay yaraatay 35,000 marka waxaa lagu weydiiyey what's the total amount of asset at the end of the year marka sanadku markuu dhammaanayay assetku muxuu ahaa marka aan isla eegno marka owner's equity waxaa lagu helaa assetkoo laga jiray liability-ga marka hore waxaan soo sheegnay in assetku laynoo leeyahay liability plus owner's equity markaan subject formula ka dhigano owner's equity-ga waxay noqonaysaa assetkeenu ka jarnaa liability-ga marka assetkeenu waa 800,000 liability-geenu waa 550,000 marka owner's equity-gu waxa ay noqonaysaa 250,000 su'aasha labaad iyadana la weydiiyey assetka marka liability-geenu haysan waxay ahayd 550,000 marka waxa la yiri liability waxa ay korodhay 150,000 marka waynu u geynaynaa owner's equity-geenu waxay ahayd 250 iyadana waxay yaraatay baa la yiri 35,000 iyadana aynu ka jaranaa marka intaa markaynu isku soo geynayno soo kala jarno waxay noo noqonayaan 955,000 waxay noo noqonayaan 955,000 marka 955,000 baa noqonaya asset qodobkan saddexaad wuxuu ka hadlayaa saddex dhacdo oo ka dhex dhacday business marka waxa lagu yiri waxa saddexdan dhacdo saameynta ay ku yeelan doonaan assetka iyo liability-ga iyo owner's equity-ga marka saameynta ay ku yeelan doonaan saddex mid bay noqon kartaa inay increase ku sameeyaan kordhiyaan inay decrease ku sameeyaan yareeyaan iyo inay noqoto no effect oo aan wax saameyn ku yeelan marka waxa la yiri purchase wuxuu soo iibsaday $500 oo hotel supplier waxa weeye qalabka lagu isticmaalayo marka $500 weeyaan waxaana ku soo iibsaday on account hadaad maqasho waa deyn lacag muu bixin weeyaan marka aan eegno marka waxay saameysay asset-ki marka supply-gu waa asset markaas asset-ku inoo batay marka waa plus oo waa increase liability-gi baa iyaduna badatay oo deyntii laynagu yeelan doona way sii badanaysaa marka iyaduna waa plus halka owner's equity way tahay no effect oo wax saameyna
isaga kuma laha owner equity-ga. bidina aan eegno waxa weeye receiver waxa uu helay $300 oo cash ah, waxaana uu ka helay for a providing service adeegu qof u qabtay, yani adeeg buu qabtay, dan markaa waxa uu helay lacag $300. marka waxay saameynaysaa iyaduna asset way saameynaysaa oo cashkeeni baa batay. liability-geeda wax saameyna kuma laha. owner equity-ga oo saameynaysaa waa revenue-guna wax saameeya owner equity-ga. sida waxa weeye wuxuu bixiyay $200 oo account payable ahaa, deyn hore laynoogu lahaa $200 bixiyey. marka waxay saameyn doontaa assetkeena oo cash baa yaraan doona, liability-gana sidoo kale way yaraan doontaa. owner equity-ga wax effect kuma laha, wax saameyna kuma laha. dhida waxa weeye waxa uu sameeyey waxa uu tusay shareholder-ka ama stock qiimihiisu dhan yahay 70,000. marka iyaduna dhiduna waxay saameyn doontaa assetkeena oo badan doonaa. liability-ga wax saameyna kuma laha. owner equity-ga iyaduna waxa weeye waa kordhaysaa, iyaduna saameynaya waa increase. dhida aynu eegno, iyadana sidoo kale waxa uu bixiyay 100 for a hotel supplies. marka wuxuu bixiyay hotel supply qiimihiisu uu dhan yahay $100. marka iyadana aynu eegno, iyada marka assetka wax saameyna kuma laha, liability-gana wax saameyna kuma laha, sidoo kale owner equity-gana wax saameyna kuma laha. F-tuna waxa weeye waa customer prepaid for 1,000 of a service. marka customer baa lacag sii bixiyay service loo qaban doono, marka waa $1,000. iyadana marka waxay saameyn doontaa assetkeena way saameyn doontaa. liability-ga nagu noqonaysaa lacagtaasi weli maynaa shaqaysanin, liability-ga marka way saameynaysaa. owner equity wax saameyna kuma laha. jida receiver waxa uu helay $200 oo bill ah for utility ayuu helay. marka utility waxyaalaan lightka iyo biyaha iyo waxyaalahaas weeyaan ayuu markaa helay. marka bill baa loo keenay, warqadii billka loo keenay, marka waa $200. marka jidana aynu eegno, sida marka assetkii ma saameynayso, weli lacagta muu bixinin, liability bay ku noqonaysaa. owner equity-gana way saameynaysaa, iyadana way yaraynaysaa. liability-guna way ku badanaysaa, deyntu way ku badanaysaa, hataa weli lacagta muu bixin. owner equity-gana way saameynaysaa iyo decrease bay ku noqonaysaa. hajta aynu eegno, profile waxa uu siiyey service buu siiyey waradkaasoo $500 u dhigma for prepaid service. marka service hore loogu sii qadimay lacagtiisii ayuu hadda bixiyey. marka aynu eegno, asset wax saameyna kuma yeelanayso. liability-gi oo lacagtii hore loogu sii qadimay aan markii hore shaqaysanin, marka uu ka shaqaystay $100. marka owner equity-gana way saameynaysaa. marka lacagtii hore loogu sii qadimay ayuu imika yani service-kii uu qabtay, marka muu wada qabanay, qayb buu qabtay. marka qaybtaa uu qabtay liability ahaan imika noqon mayso, way ka baxsaa. liability waxay noqonaysaa owner equity-ga saameynaysaa. assetka isaga wax saameyna kuma yeelanayso, hore assetka soo gashay. marka qodobka saddexaad intaasuu noqonayaa. qodobkeena afraad marka wuxuu noqonayaa waa tusaalahaan isaguna during the year sanadka intii lagu jiray Hassan's accounting practice showed the increase in the network. waxay tusinay networkkiisa ama capitalkiisu ay korodhay. marka waxa ay korodhay 40,000 bay ahayd, waxay noqotay 50,000. capitalka marka ninka Hassan la capitalkiisu marka waxay 40,000, inta sanadka lagu guda jiray 50,000 ay noqotay. marka waxa lagu Hassan waxyaalaha lagu siiyay intii wax kamid Hassan did not make any new investment. marka wax investment muu sameyn. marka capitalka waxyaalaha kordhiya wax kamid ah in investment la sameeyo oo yani shirkadii maalgelin dambe lagu sameeyo. marka wax investment kuma sameynin businesskii. marka net income-ka yani shirkadda faa'iidada shaqaysan waxay noqotay 12,000. what's the amount of the owner's withdrawal that Hassan made during the year? marka lacagta withdrawal waxa waa lacagta qof iskii u isticmaalo, personal consumption u isticmaalo ee aan wax businesska faa'iido ugu jirin. marka lacag buu iskala baxay qofku, businesska waxba uguma qabanin, taasaa withdrawal. marka lacagtu isagu iskala baxay waa imise baa lagu. marka waxyaalaha la nashada waxa kamid ninkaas hantiisu waxay 40,000 waxay noqotay 50,000. wax investment kuma sameynin. lacagta oo shirkaddu faa'iido shaqaysana waxay noqotay 12,000. marka nisaab eegno lacagta shirkaddu ay noqotay waxay noqotay 50,000. marka markii horena waxay ahayd 40,000. 40,000 wax investment ma jiro, waa zero isagu. haddaynu u goyno intii uu shirkaddu faa'iido ay soo saartay waxay noqonaysaa
12,000 bay noqonaysaa. 12,000 haddaynu geyno marka la isku wada daro waxay noqonaysaa 52,000 bay noqonaysaa. marka 52,000 maadaama noqotay imika lacagta aynu haynaa ay tahay 50,000 marka lacagta uu la baxay withdrawalkii 2,000 bay noqonaysaa. marka waxaynu kusoo saaranaa sida ugu fudud waxa weeye inaynu lacagta haysanno marka 40,000 haynaynu ku darno lacagta faa'iidada aynu soo saarnay. marka waxay noqonaysaa 52,000 lacagta imika aynu ka jarnaa 50,000 marka 2,000 waa dividends marka waa lacagta withdrawalku la baxay. number 5 marka waa tusaalahan waxa uu sheegayaa transactions iyaguna dhacay. marka balance sheetkiisa hore marka balance sheetkiiyo waxa yahay income financial statements oo dhan gadaal baan ka dhigan doonaa casharka wixii insha Allah noqon doonaa. marka balance sheet waa mid ka mid ah financial statementska marka ay wax sheegtaa financial positionka oo businessku marayo. marka cashkiisa marka waxa ku jiray $7,000 accounts receivable-kiisa waxa ku jiray $2,000 supply-guna halka uu ahaa $500 office equipment isaguna wuxuu ahaa $5,000 conveyable-keydana waxa ku sii jiray $5,500 common stock iyaduna waa $7,500 waa capital-kuna retained income iyaduna waa $1,500 marka intaasi horta iyadu sideeda inuu sii geliyanaa sideeda marka uu sii jirtay transactionska marka waa taas 7,000 waa cash 2,000 waa accounts receivable marka dhammaantood taas iyagu inoo sii jiraan oo financial statements kan iyada ka ku sii arki doonaa. waxa muhiim ah transactionska hadaba imika dhacay marka waxa la wuri takuwaado kale waxa dhacday waxa uu helay uu collect gareeyay minsu hadda cash buu ku helay deyn cid ku lahaa accounts receivable ku waa deynaad cid ku lahayd marka deyn ka mid cid ku lahaa uu helay marka hadda waxa dhacay cashkiisi $1,000 buu kordhay deyntii cidda ku lahaa ay $2,000 ahayd iyaduna way yaraatay oo waxay noqotay $1,000 baa ku doona waxay noqon doontaa $1,000 nimco ku yeelan doona. number 2 waxa dhacay bil waxa uu bixiyay $1,200 cash uu bixiyay account payable deyn isaga lagu lahaa buu iska bixiyay marka inta uu wada bixinay $1,200 buu bixiyay marka cashkiisi $1,200 buu yaraan doonaa deyntii oo liability iyaduna account payable lagu lahaana $1,200 buu yaraan doontaa iyaduna. number 3 waxa uu shaqaystay dakhli dhan $10,000 $10,000 uu shaqaystay 3,000 oo ka mid ah cash buu ku helay inta kalena inta lagu jiro March dhexdeeda ayuu heli doonaa. marka number 3 $3,000 cashkeenu uu kordhay toddobada soo hadh waxa noqon doona accounts receivable deynina cid kale inay heli doono March dhexdeeda. xagga kale si equation ku balance noqoto dhinaca kalena aynu receivable ay saameynaysaa waa revenue-gaas oo dhan $10,000 marka $10,000 inta hadii la isugu geeyo 7,000 iyo 3,000 iyaguna 10,000 marka balance weeyay. number 4 waxa uu soo iibsaday purchase additional equipment buu soo iibsaday qalab dheeraada kuwaasoo dhan $2,000 marka 250 ka mid ah cash buu ku bixiyay balance-gana waa lagu yeeshay. marka number 4 waxa cashkii 250 baa ka yaraaday sidoo kale waxaa kordhay $2,000 buu ku kordhay equipment-kii marka qalab waxaynu soo iibsanay $2,000 u dhigma marka halkaas isaguna ka kordhaya. sidoo kale deynteeni maadaama 250 bixinay inta kale $2,000 ahayd $1,750 baa inoogu yeelanaya intaasna waxay geli doontaa account payable-ka. let's see number 5 waxa uu bixiyay salary mushaaraadkii uu siiyay $2,000 sidoo kale wuxuu bixiyay kiradii buu bixiyay oo iyaduna $1,500 waxa uu bixiyay advertisement expense oo xayeysiiskiya marka dhammaan intaas waxay noqon doontaa waxay saameyn doontaa waxay total cost ku noqdeen $3,950 marka $3,950 baa ka guud doona cashkeena $3,950 sidoo kale waxay saameyn doonaan expense bay noqon doonaa marka $2,000 waxa ahaa salary expense $1,500 waxa ahaa rent expense halka $450 ahayn advertisement expense marka intaas hadii la sugayo waxay noqon doontaa $3,950 xagna waa taasoo cashkeena ay saameysay $3,950 buu cashkeena yaraaday. sidoo kale number 6 waxa uu sameeyay withdrawal yani ownerkii baa cash iskala baxay uu isagu personal u isticmaalayo marka waxa uu la baxay $550 buu la baxay marka aynu soo saameyso cashkeena $550 buu yaraaday sidoo kale capital-kana waxay ka saameynaysaa drawing-ka oo $550 baa drawing noqday uu la baxay
anagana 7 waxaa dhacay receipt waxa uu helay $1 buu ka helay from allied companygaasuu ka helay borrowed on note payable marka waxa uu helay $1 company bank buu ka helay marka bankaas waxa uu amaahiyey $1 buu soo amaahiyey deyntaas waliba nooca note payable oo deyn qoran ah marka number 7 aan eegno horta cashkiisa waxa uu kordhay $1 sidoo kale $1 waxa uu noqon doonaa liability oo waliba note payable number 8 aan eegno incurred utility expense for the month on an account marka waxa uu galay utility expense buu galay taasoo waliba $500 ah marka waxay saameyn doontaa iyaduna account payable number 8 marka waxay noqonaysaa waxa uu galay utility expense buu galay yani utility waxa weeye leerka iyo waxyaalahaas kharashaadkaas uu galay kharashaadkaas waliba on account oo lagu leeyahay iskama bixinin marka waxay saameyn doontaa mar haddaan iska bixin cashkeena ma saameynayso waxay geli doontaa liability-ga marka waxay noqotay account payable $500 expense-kiisa oo kala galaysaa oo iyaduna $500 marka intaas markaan $7,000 usoo geyno $1,000 aynu ka jirno $1,200 sidoo kale aynu u geyno $3,000 intaas oo dhan isku soo wada geyno wixii balaasana isku geyno wixii minusana kala jarno waxa uu noqon doonaa balance-ga soo haraa $650 buu noqon doonaa cashkeenu halka uu noqon doono receivable-keena 8,000 supply wuxuu noqon doonaa $500 baa ku jira equipment-ka isaga waxaa ku jira $5,000 iyo $2,000 marka $7,000 isla noqon doonaa note payable-ka $1,000 ma inoogu jira account payable-kana waxaa inoogu jira $5,500 waxaynu ka jarnaa $1,200 waxaynu u geyn doonaa $1,750 kaas sidoo kale $500 baynu usii geyn doonaa $6,550 buu isla noqon doonaa capitalkeenu waa intaas weeyaan waxay noqonaysaa $7,500 marka revenue-geena iyo marka waxaan sii haysanay $1,500 $10,000 baynu u gelin doonaa expense-ka dhan baynu ka jari doonaa iyo drawing-ka iyadana waxaa inagu soo haraya $6,500 marka totalka dhinaca waxaa isla noqon doonaa asset-ka waxaa noqon doonaa $22,550 sidoo kale liability plus on receipt-gana waxaa isla noqon doonaa $22,550 marka saasay balance ku tahay marka halkaas aynu ku joojin doonaa casharka ku xigan dhigan doonaa insha Allah income statements dhammaantiin